رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta can caa'ishata ummi almu'miniina radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama sallaa daata laylatin fi lmasjid فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان رواه البخاري. waxaa laga wariyey caaisha hooyadii mu'miniinta ilaahay raalliha ka ahaadee in rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu habeen masaajidka ku tukaday markaasaa salaadii dad la tukadeen suu habeenkii ku xigay ayuu haddana ku tukaday saa dadkii baa batay markaasay habeenkii saddexaad ama kii afraad isu yimaadeen laakiin uma soo bixin rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasallam markuuse waa bariistay ayuu ku yidhi runtii ama dhabtii waan arkay waxaad fasheen igamana joojin in aan idiin soo baxo wax aan ka ahayn in aan ka baqay in la idinku farad yeelo arrintaanina waxay dhacday ramadaanta dhexdeedii bukhaari ayaa wariyey رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام